oo aan ka seexan waayay oo madaxaygan ka weynaatay ayaan arkay inay yaro 15 jir oo tahriibtay oo hada tahriibtay la wala tahriibi jiray oo ilaahay dad uu badbaadin jiray dadna saas oo kala wadooyinka loogu qaban jiray tan telefoon baba inta la soo diray waxa leeyahay oo maxay qaxoontiga joogta oo lacag ay badan fara badan 8500 waa lacag aad u fara badan maba dhici karto mana heli karto wax maskaxda gali karna maaha hooyo waa hooyo iska Soomaaliyeed waa hooyo iska dhibaataysan waa hooyo qaxoontiga iska joogta iyada gabadhana ilaahay ka qabto gabadha yar horta maba la oran karo maxay u tahriibtay oo waa dhacday hooyana gabadheeda yar iska may dirteen ilma inan iyo intaba iska may dirteen mid kale gabadhaas oo kaliya ma aha inamadii internetka lagu soo shubay ee la garaacay wax aad looga naxo gabadha sidoo oo kale gabadh kale iyadana ay lagu soo shubay internetka oo iyadana la garaacayo ummadii oo la wada garaacayo waa inay xukuumadda federaalka Soomaaliya dawladdu ka jawaabtaa dhalinyarada dhibaatada ku haysata qurbaha iyo meel walba iyo tahriibta balse sibay dhaantay waxa ka sii daran oo muraara dilaaca inta telefoon lagu soo diro waa taagan tahay kawaankay saaran tahay ka soo gaar lacagta keen waxaba kaaga darxdana in qof Soomaaliya soo diray damiir darrada iyo damiir xumada in dadkii damiirkii ka dhintay oo qalbigii ka dhintay nin Soomaaliyeed baa wuxuu ku leeyahay ma la gaarayo maamadii markay calaacashay oo tiri maxay tahay ciidan soo diray lacagta hooyo ha iga taaban hooyo ha iga dilin hooyo wallahi billahi ilma isku soo kay taagtay haddana uu leeyahay maya ma ka gaarayno waa maya ma iska hayso haddana ay dib calaacashay oo tiri hooyo ma 15 kan soo diraya hooyo haddaan soo diraya de aanay haynin oo niyada ugu dhisay hooyo gabadhii iidi oo gabadhii haddana maraad la ilaalisay horta hooyadaas waxaan ku wuri cadaab if umadina cadaab aakhira iska badaaytii if umadina ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ha caawiyeen maamadaas qofkii wuxuu awooda qofkii wuxuu awoodi lacag taayir la isugu dardaro iyo hadii inta la isugu daro waa laga bixin karaa hadii xoog la saaro laakiin calool xumada iyo muraad dilaaca iyo maamadaas iyo hooyo Soomaaliyeed oo dhanba iyo dhibaatada dhacday ee tahriibta carruurta ka dhacday waa wax aad loogu xumaado waa wax laga qeyroodo wadanka Liibiya uu saa u gelayo dhalinyar waa inay dawladda xukuumaddu ka hadashaa waa in madaxda ugu sarsaraysa ee dalka ee wuxuu qaban kara dhalinyarada waa inay ka hadlaan sidoo kale waxa iyadana naxdin inay yaro dhalinyara oo haddana isaga indhaha aad ku arkaysid oo la garaacayo waa arrin laga xumaado taasina aad baan uga naxay 12 xalay indhahayga soo jeeda wallahi billahi wallahi saddex magac ilaahay ma seexan waxaan u seexan waayay yani waa wax laga qeyroodo waa wax muraar dilaaca waa wax يعني بربر كهذا إسكندر دولة بقى إنه قد على بربر بعد عيد كيبا تهريبي وطن كيبا لقى عرية بس إن كاسي سوردي سمر كلا صور دقي عن خرق وأركي وطن كيسو شوقي مال حب وشوقي نبض وخقبي وهو يقعشوا إميكا العجها لا أورورنا يو قف وطن كي شوق أو كقعشونا يا عندي سنبض وهيسا عندنا ما قرأي عندنا مدرسو لكن قف عدو هيستو أو تشيل كشرا وهذا لا قراعي وحكى حميد هذا حتى هذا الكلام waxaan ku hadlayo waxaan ku raano dhanba isdaba marsan umraar dilaac iyo naxdintii ayaa iga farbadatay indhahayga soo soo jeeda xaritooda 9 jeer baan ku celiyo oo dib u daawaday qofkii wuxuu qaban karaa ma jirto anu wixii aan u heli karo aan u qabanay laakiin waxaan u sheegay inta page-ka ku jirta ee daawanaysa dad fara badan ayaa dabcan daawanaya oo aan arkaya oo page-ka ku jira maamada page-ka soo galiyay muuqaalkeedii iyo telefoonkeedii intaba